أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. ولا ليال waxaynu ku dhex jirnaa duruusteena xiriirka ahayd oo ramadaaniyada aheeday annagoo soo gaarnay darsigeena 23aad. waxaanu soo qaadanaynay bishaan ramadaan oo barakaysan, maalin walba iyo habeen walba darsi oo lagu khasisay ama munaasab u ah ayaanu soo qaadanaynay. darsigeenan 23aad waxaanu ku soo qaadanaynaa qofka da'da ah iyo haweenta uurka leh iyo midda ilmaha nuujinaysa iyo qofka jiran oo maralun laa yurjaa bur'uhu oo haayo cudur aan markaasi la rajaynayn qofkaani inuu ka bogsado, sida cudurrada markaasi aan dawada lahayn oo dadka adibada ah oo dhaqaatiirtu ay yidhaahdeen cudurkaanu daawo male uu haayo. dadkaas inay u bannaan tahay inay iska afuraan, lagana doonaayo fidyo wax la yidhaha laga doonaayo. marka hadda darsigeennaanu arrintaas ayuu ku saabsanaanayaa. waxaan marka soo qaadanaynaa dhowr xadiis ayaanu usoo qaadanaynaa. xadiiska ugu horreeyaanu usoo qaadanayno waxaa laga wariyey saxaabiga jaliilka ah oo la yidhaha cabdullaahi binu cabbaas, asagoo markaasi ta'wiishanaya aayadatan ku jirta suuratu lbaqara. waxa uu yidhi cabdullaahi: wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiinin. aayaddaas ilaahay uu dhahay subxaanahu wa tacaala waxaa laga doonayaa dadka soonka kara, fidyaa laga doonayaa, taasoo waxa weeye miskiin in la quudiyaa. waxau dhahay: hiya ruksatun lishaykhi alkabiiri waalmar'ati alkabiirati wahumaa yudiiqaani asawm an yufdiraa wayudcimaa makaana kulli yawmin miskiinan waalxubla waalmurdic idaa khaafataa afdarataa wa adcamataa. xadiis abu daa-uud wariyey, bukhaarina uu wariyey, oo baa uu tafsiir uu ku wariyey. marka hadda wuxuu dhahay cabdullaahi binu cabbaas, aayaddan iyadoo tafaasiir badan ay iska leedahay oo baabu tafsiirka sida hadda jamhuurtu qababo markii la joogo wacala aladiina yudiiquuna hudan, sida markii dambe xukunka uu ku istiqraaray waxaa lagu qadarayay haddii masalanba hadda sidatan hadda ibnu cabbaas uu noogu fasirayo loo raaco, waxaa la leeyahay wacala aladiina laa yudiiquunahu, dadka aan awoodaynin soonka waxaa dushooda ahoo laga rabaa fidyatun ayaa laga doonayaa. waana dacaamu miskiinin, miskiin in quud la siiyo. miskiin kastaba waxa weeye maaragtay yaa la siiyo mud la siiyo. dadka soonka aan awoodin inay markaa hisaas ay yeelaanoo saas ay isagaga bixiyaan. marka asagu waxau dhahay waxay rukso u tahay ninka qofka raggaa oo duqoobay iyo naagta duqowday, ayagoo duqoobay haddana soonkii kara inay iska afuraan ay leeyihiin, ay quudiyaan makaankas maalin kasta bedelkeeda miskiin ay quudiyaan. caashaan waxay haystaan ayuu leeyahay ibnu cabbaas da-dii markaasi waxa weeye u ruqsaynaysay inay maaragtay iska afuraan. haddaysan awoodinna waxayba kasii tahay min baabi owlaa. marka hadda aayadatan haddii sideeda lagu wado waktiga hore oo islaamka bilowgiisa ahay, soonka horena waa uga soo hadalnaye, waxaa jiri jirtay in qofkii awoodi kara xataa
أو مركاسي بدل كيدي أو اسكب حجري maalinta oo iska bixi jiray mud iska bixi jiray hadii uu rabana uu soomi jiray laakiin aayadatan waa la nasakhay waa markii loo nisbeeyo dadka xoog gale oo awoodi kara weey sida aan ku soo mari jirna aslu soom asalka soonka sidoo ahay islaamka bilowgi sidoo ahay laakiin hadda sida ibn Abbas uu sheegayo dadka lucafada markii loo nisbeeyo aayaddaanu sideeday baaqi ku tahay waana loogu amal falaya ibn Abbas wuxuu leeyahay mansuukha ma ahan ee waxa weeye lucafadaaba looga hadlaa uu leeyahay asagu laakiin sida hadda maaratay aslu soomka aanu ku soo marnay waqtiga hore waxa jirtay qofkii rabana wuxuu iska bixi jiray fidyo iska bixi jiray markaasuu soonkiisa iska cuni jiray qofkii markaasi rabana way iska soomi jiriyay marka aayada waxa leeyahay waa la nasakhayo dadka aqwiyada ah oo awoodooda inay soomaan fidyo inay iska bixiyaan ma u banaana laakiin aayadu waxay baaqi ku tahay dadka lucafada ah sida maaratay qofka da'da iyo maaratay haweenta uur kale iyo marka mid nuujinaysa iyo mariilka la yurjaa buruhu qofka markaasi mariilka oo aan markaasi cudur oo haayo aan dawalahayn oo dawadiisa la rajaynin si hadda cuduradan maaratay khatarta ah oo diabetada sida sokorta iyo dhiikarka iyo cuduradaas dadka qaba iyo wax lamid ah waxa weeye dadkaas haday awoodi karaan waa ka haday laakiin awoodi karin shariicadu waxay u ruqsayaysaa markaasi inay iska cunaan oo booskii iska bixiyaan markaasi fidyada iska bixiyaan ayna ilaahi subhanahu wa ta'ala diinteena wuxuu ka dhigay diin suhuula wa samaaha ka dhigay marka hadaba qofkan marka hadda haweenta nuujinaysa ilmaha iyo midda uur kale ayaga waxa la fiirinayaa hawshooda ayaga waa arin xaadisa weeye haweentu markaasi uur kale ama nuujinaysa laba qaybood ayaa xukunkeeda loo kala qaadayaa markii haweentu nafteeda ay u baqdo oo ayadu istiraada naftaada ayaa dhibaato ka soo gaaraysa soonkan ma awoodid waa iska cunaysa hadhowna soonka iska soo qalaynaysa laakiin haday ilmaha ay nuujayso iyo ku uurka ku sidaaday u baqdo oo sidaas markaasi ay ku afurto waxa laga rabaa qalla iyo fidya laga doonayaa soonkina waa soo qalayhaysa maalintina waxa weeye koomba badala amba koomba shawd ay ku kabaysa saasa marka taasna iyagana xukunkeedu noqonaya marka falil mar'ati war rajuli alladhi la yudiqani sawm likabirihima an yufdira wa yud'ima an kulli yawmin muddan sida marka jamhuurta ay qabaan taas weey naagta iyo ninka oo markaasi soonka aan awoodin isla markaasna da ku awoodi waaye way iska leeyihiin inay afuraan oo markaasi maalintii bedelkeedii ay kooma badar bixiyaan sida jamhuurtu qabto saasa leeyahay marka idcaamkan waxa lagu magacaabaa fidya lagu magacaabaa maxay yeelay fidya waxa loo yiri li'annahu iftada siyaaba bi soonka ayuu qofka ka furtay kafaarana waa la isaga magacaabaa marka haday dacaamkaas bixiyaan dadkaas waa weyn oo da'da oo soonka awoodi waaye wax qallahu laga doonayo ma jirto xadiis daaru qudni kiisa iyo xaakim oo saxiix yeelan ayaana daliil u ah oo waxa ay xadiiskaas waxa uu dhahay rakhasa lil kabir an yufdira wa yud'ima kull yawmin miskinan wala qala alayhi xadiis sidaas ah jiro rasuulku alayhi salaam qofka da'da wuxuu u ruqseeyay inuu iska afuro oo maalintii uu afuro bedelkeedii kooma badal uu bixiyo wax qalaana laga dooni maayo naagta uurkana saahru sheegnay midda nuujinaysa markay cabsadaan ay awlaadooda u cabsadaan markaas waxa laga rabaa fidyo iyo markaas qala laga doonayaa taas weey marka waxana daliil qowl ibn Abbas
ولد أيو مارتها ابن عباس وحوكونا أو أصغوا لها يؤور لهذا أنت بمنزلة الذي لا يضيق فعليك الفداء ولا قلاو له أذيك وحال لمتها يودهي قفك أنسونك أودين وحال لقارها مركاسي فدي أيال لقارها ولا قلنا مجرته مركا ولد سوحوي ملا قف حي هذا مركاسي دأه أنسومي بكر لي هذا لكن هذا مثلا بحبل أي تهي أو مركاسي هذا يور كان دجسادو أي سونك أي سوق الله يكرته وحوي مركز لو كابتومي ماي مركز فدية كريه لو كابتومي ماي وسوق هو سوق الله يساعدي أولاديد أيو عبصتي هذا نفتيد أو عبصتنا وحوي قلنا لقد دونيا ساسا مركز اللي مركز سيدا سوي مركز آيادان وسيدا أيا مركز ساحوهم كذا جمهور سيدا سيدا هذين dadka waxa laga wadaa markaasi da'da ah oo markaa soonka awoodin ayaa laga wadaa iyo haweenta xublada iyo maartay midda murlicada iyo mariidka la yurjaa buruhu taas ayaa laga wadaa marka riwaayada oo Bukhari oo kitaabu tafsiir oo ku wariyay lafdigeedu wuxuu ahaa ibn Abbas wuxuu dhahay hiya laysa bimansukhatin hiya lishaykh al-kabir wal mar'ati al-kabirati آيات منسوخة ما أهنا وده يسوي وحى مركز لو لجيدا لينك أضيقه هو دأدا يهوانت دأدا ولا يستطيعان أن يصوما إن يصومان أن أودين فيدعمان مكان كل يوم مسكينا ما لينك تبدل كيدي وحي قودنا يا مسكين يقودنا يا قاب هذا قودسك ضد سحن مارت أفهم ياجرة وضد كسحن حتى أو جوابا يودها قفان أفورها يساعدها ورميشان أفور اسماهن قود نكاس لما يراهدو وها سوحا ويه وحي صدع عاموي مسكينك وحا لسينا يا شيء حبض او بدر كيو ان مركاسي لججبين او اما قليدي قوت الغالبك ايا لسينا يا اما بريسكي هيا لسينا يا مالين كستنا لباتنكي افر تسع هل مر ايا لديبا مرلي اسكو ديبي مايو inta soonkaas uu socdo ayaa markaasi waxa weeye maalintiba hal koombo ayuu dhiibaya markaas 20kaasi 4 saac ayuu maartay koombo dhiibaya laakiin qof maartay oo sooman ayaa gurigeyga u soo afur leh taas wax maartay meel dhigaysa ma jirto wax laga soo guushana ma jiraan taas jahli weey taas meel kale ibn Abbas wuxuu dhahay aayadan la yurakhasu fi hada إلا للذي لا يضيق الصيام أو مريض لا يشفى وهو دهي لو رقصي ما يؤرنتة إلا قف عن سونك أودين موياني أمام مريض مركاسي عن إنه إلهي أشافيه أما إنه عاف ما بدأ لتجيني حديث كاسو مركاسي أصور حديث نسائي وعن سوق هذا هنا مركا حديث كلو لقوري أبي قرابة ومركز نين وكوري لكن نينك وكوري وأنس ابن مالك عليه أنس ابن مالك ويالي وأوداي أتيت النبي أوداي صلى الله عليه وسلم لحاجة لكن أنس كان أنس ابن مالك وحاجر الجلال لمن ليلى بني عبد الله ابن كعب كترسن oo Anas marka nabiga kaleey sallallahu salaam qaadintiisa aan ahayn waa dhahay Anas kaas ataytu nabiy sallallahu alayhi wa sallama li haajatin nabiga kaleey sallallahu salaam ayaan u imiday haajana u imiday faidan huwa yataqada marka nabiga kaleey sallallahu salaam waa qadayna ayuu dhaw cunto cunaay markaas uu dhahay haluma ila alqadaa'i u dhahay ta'al kala imaarati ya qadadan ila cun markaas waxaan dhahay yuri inni saa'imun misoomanana markaas uu dhahay yuri haluma ukhbirka aan sawmi kaay ayaan soonka kaaga waramay macnaha xukunka soonka oo qofka musaafirka aan kaaga waramay asaga ayaa markaas musaafir ahay waana sida tan uu dhahay inna allaha wallaha 'anil musaafiri nisfa salati was-sawm ilaahi qofka musaafirka salaada nuskeeda uu ka dajiyay
معايا لقفك هدو مسافر يهي سفر أو مركز مسافة القصر جاري أو سفرايو وهأبنا صلاة إنو قابيو أو هدنا أو جمعيو أو صلاة رباعية هيدي سيدا الظهر كي عصر كي عشاء لبا أيو كدو كنيا مركا إلهي وكدجي قفك مسافر صلاة نص كذا أيو كدجي إيه مركا سوى الصوم صونك معناها صونك وحال لقوة والله الصوم وهي عن المسافر على لقوة صونك نجيبي أهم وحاول قفك مسافر كوال لقدجي oo waxa loo baneeyay ka wada rasuulka kaleey salaam inuu afuro markii soonka uu ku dhigtoodo marka rasuulka kaleey salaam ninkan ayaa markaasi saa'im ahay markaas uu sheegayay inuu maartay maadaama musaafir uu yahay soonka uu iska jabi karo oo wax uu cuni kariyo mar hadii nabiga uu yeeray kaleey salaam uu yiri haluma oo rasuulka kaleey ila qada isna uu yiri saa'im aan ahay ninkina nin oo musaafir uu yahay nabigu saasoo ku dhahay kaleey salaam hada nabigu waxa uu dhahay kaleey salaam warakhasa lil hubla wal murli naagta oo uur kale iyo midda nuujinaysane ee ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ruqseeyay oo waxa loo baneeyay inay ayaguna markaas soonka iska jabiyaan iftaar ayaa markaas loo baneeyay markay waxa weeye ila khaafata markay cabsadaan ama awlaadooda ha u cabsadaano midkay nuujayaan iyo midka uurka ku jira ama naftooda ha u cabsadaano haday naftooda u cabsadaan hadii awlaad u cabsadaan xukunka ay leedahay waa taan soo mareyni walow hada khilaaf xagga madaahibta uu jiro laakiin hada taas waxba hada sii raadi mayno waayahay marka sidaas ayaa markaas aimadu maartay hay khilaaf uga jira xagga qaabka ay soo qalayhayaan iyo qaabka fidyada looga rabo iyo laakiin sidaas ayaa hada maartay hada ugu raajixsan oo imaam Shaafi'i imaam Ahmad ibn Hanbal waxay leeyihiin haday waladkooda u cabsadaan qalla iyo fidya laga doonayaa معايلة وفطر أفر ارتفق به شخصان لبا شخص أيها كل مرتضي هذي لكن وحوية أي عبصدار نفسه قال لك ليها لقدونية حديث كاس مركة وحاولي أصحاب السنن أيها وريي وهي فوري مركة السنة حسن أي فوريين أوساطوي مركز ترمذي وكا سنة كيس حسن وي نسائي سنة سنة صحيح وفوري كاسي مركزي كليين marka nabiga kaleey salaam sidaas ayuu u fahamsiiyay oo ninkaanu maadaama uu saa'im yahay isla markaasna musaafir uu yahay inay u banaanto u tusiyo nabiga kaleey salaam inuu markaas iska afuri karo oo waxa uu dhahay rasuulku inna allaha wallahi 'anil musafirin nisfa salati was-sawm ayuu dhahay soonkana ilaahi waa ka dajiyay oo waxa weeye ina iska afuro intuu musaafirka yahay ayuu hadhow iska soo qalaynaya haweenta uur kale iyo midda nuujinaysana ayaguna sidaas way xukunkooda marka hadda darsigeeni markaas si aan uga hadlaynay qofka da'da ah rag iyo dumar waxa uu yahay iyo naagta uur kale iyo midda nuujinaysa iyo qofka mariilka hoo jiran oo cudur oo haayo inuu ka bogsado aan la rajaynaynin waxa laga rabaa inay afuraan oo iska bixiyaan fidyadaas درسيgaas iyo ahkaamtii ku tacalluqaysay xadiis aynu ku soo qaadanay oo noqonayo darsigeena hadana 23 intaas uu noogu egyahay wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi